Assalaamu calaykum. Ku soo dhawaada muuqaalka maanta. Muuqaalka maanta waxaan uga hadli doonaa 10 magaalo ugu waaweyn adduunka iyo dadka ku nool. Daawasho wacan. Number 1 Tokyo. Tokyo waa caasimadda dalka Japan. Tokyo waxaa ku nool dad gaaraya 37,468 qof. Number 2 Delhi. Delhi waa caasimadda dalka Hindiya. Delhi waxaa ku nool dad gaaraya 28,514,000 qof. Number 3 Shanghai. Shanghai waa caasimadda dalka China. Shanghai waxaa ku nool dad gaaraya 25,582,000 qof. São Paulo waa caasimadda dalka Brazil. São Paulo waxaa ku nool dad gaaraya 21,650,000 qof. Numberka 5 Mexico City. Mexico City waa caasimadda dalka Mexico. waxaa ku nool dad gaaraya 22,580,000 qof. Numberka 6 Qaahira. Qaahira waa caasimadda dalka Masar. Qaahira waxaa ku nool dad gaaraya 20,076,000 qof. Dhaka waa caasimadda dalka Bangladesh. Dhaka waxaa ku nool dad gaaraya 19,578,000 qof. Numberka 8 New York. New York waa caasimadda USA ama United States of America. New York waxaa ku nool dad gaaraya 18,819,000 qof. Numberka 9 Karachi. Karachi waa caasimadda dalka Pakistan. Karachi waxaa ku nool dad gaaraya 15,400,000 qof. Numberka 10 Buenos Aires. Buenos Aires waa caasimadda dalka Argentine. Buenos Aires waxaa ku nool dad gaaraya 14,967,000 qof.